بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا wuxuu ku saabsan yahay الرفق يعني naxariista ama dhimrinta. diinteena islaamku waa diin dhimrinta yani aad iyo aad u jecel. dhimrinta ama naxariisashaduna dadkana waa loo sameeyaa, xoolahana waa loo sameeyaa. rifqiga dadka yani gaar ahaan dadku markii ay مثلا ama wax ka khaldamaan oo kale dadka dabiic ahaan waxa uu ah saynu aragnay in lagu la boodo oo qofkii wax ka khaldameen sidii adiga oo khalad inuu galaba aad raadinaysay oo fursad ku helay oo kale in lagu la wada boodo. halkaas marka tarbiyadu sidaas ma aha ee intiqaam wax la yiraahdo ayaa sidaas ah oo qofku markuu khalad galo dadka qaar inay ugu farxayaan ama inuu khaladkii galay si ama ay ugu ceebeeyaan ama ay ugu ciqaabaan. halka loo baahan yahay inay noqoto qofka hadduu khalad uu galay in laga xumaado inuu khalad galay isla markaasna hadafku ama ujeedadu ay noqoto khaladkaasi si uusan mar kale u gali lahayn si looga baabi'in lahaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisii nin ayaa masaajid ku kaadiyey, markaasay dadkii kula boodeen masaajid inuu ku kaadiyey ayagoo dhibsanaya. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri daaya, waa la daayay, kaadadiisa ayuu iska dhamaystay masaajidka dhexdiisa. markuu dhameeyey ayaa nabiga wuxuu ku yiri meeshii uu ku kaadiyey wadaan biyo ah korka uga shuba, korkii ayaa looga shubay, sidii ayayna arrintu ku dhamaatay. ninkiina habkaas dhimrinta ah ee uu ka arkay mucaamalada nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa wuxuu u duceeyay asaga iyo nabiga asoo dhahaya ilaahu aniga iyo nabi maxamed oo kaliya noo naxariiso cid kalena ilaahu ha nagu soo darin. yarkaas nabiga wuxuu ku yiri waxa waasaca ayaad soo ciriirisay maxaa yeelay ilaahay naxariistiisu ilaahay wuxuu yiri warahmatii wasacad kulla shay, yani naxariista ilaahay cid walba ayay gaaraysaa. sidoo kale nin ayaa salaada dhexdeeda ku hadlay soo iska sheekaynaya, dadku waxay isku dayeen inay aamusiyaan laakiin ma ina ku guulaysanin. markii salaada laga baxay ayuu nabigu weydiiyey qofkii salaada ku dhexadlayay, markii la tusiyeyna ninkii oo ka sheekaynaya wuxuu wallahi nabigu imana canaananin imana guulguulin wuxuu ugu yiri oo kaliya in hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas, yani uma haboono salaada dhexdeeda wax dadka sheekadooda in lagu soo qaado ayadoo waa quraan akhris iyo tasbiix. marka saas uu ogow ninkeena sidii ayuu arrintii u qaatay. wiil ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u imaaday, markaas wuxuu ku yiri rasuulka ilaahay aan waxaan rabaa inaad ii fasaxdo inaan zinaysto oo warqad aad iigu qorto. markaasay dadkii la yaabeen rasuul ilaahay qof ula imaanaya inuu macsiyad sameeyo. markaasuu yiri ka leexda udnu ilaya ii soo dhawow, maxaad rabtaa? arrintiisa ayuu sheegtay. nabigu markaasuu si caqli ah oo nafsadiisa ninkii ku qancinaya wuxuu ku yiri arrintaas ayada raali miyaad uga tahay hooyada iyo walaasha iyo in lagu sameeyo? markaasuu yiri may raali ugama ihi. markaasuu yiri dadkuna waa saas oo kale, yani yaan kuugu qora oon kuugu fasaxaa. markaasuu u duceeyey wuxuu ku yiri ilaahow qalbigiisana dahir, farjigiisana oo ilaaliyo, dembigiisana ilaahay u dhaaf. markaas wiilkii dib dambe arrintii ayadeed loogama arkin. marka rifqu waa sidaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wixii dhimrin lagu daro wuu qurxiyaa, wixii cunfi iyo adayg lagu darana waa uu fool xumeeyaa. yani naxariis darrida waxaad arkaysaan xadiidkii ahaa haweeney in naarta la geliyey cudibad imra'atun fi hirratin xabasataha, mukulaal ay meel ku xidhay ayaa naarta ay u gashay. nabigu wuxuu yiri mana ayna sii deynaha iska meelaha iska soo cuntee, mana ayna raashin siinin, meelba ay ku xirneed sidii ayay ku dhimatay. maadaama mukulaal ay ciqaabtay ayaa iyadana la ciqaabay. marka diinteenu ciddii wax ciqaabtan inay ciqaab u taalo, ciddii wax u naxariisatana in yani loo naxariisana ayay noo tilmaamaysaa. nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo aynu wada jecelnahayna ilaahay wuxuu ku tilmaamay laqad ja'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. marka bulshadeena soomaaliyeed waxay u baahannahay inaan dib isugu laabanno habka aan ula dhaqmayno dadka haddii aan wax ka khaldamaan ama haddii aynu wax barayno oo wada cunfiga ama adayga ah waa midda keenaysa bulshada nolosheeda kalena inay adayg iyo dagaal ay noqoto. haddii la rabo marka arrintaas si looga baxo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim, in dhimrinta iyo naxariista iyo tartiib isu hadalka iyo wax isu sheegidda in aad loo badiyo oo qofka markuu wax ka xumaadaan oo ay dhici karto inay wax ka khaldan yihiin inaan lagula sii boodin. maxaa yeele haddii lagula sii boodo yani wuxuu keenayaa inuu kusii dhego wixii xumaa ee hadda lagula yaabanaa. haddii laakiin loo dhimriyo oo wixii xumaa loo sheego xumaatadooda wuu ka soo go'ayaa, wuxuu noqonayaa qof marka wanaagsan oo iska daayey arrintii xumayd ee uu ku jiray. marka rifqiga iyo dhimrinta iyo naxariisashada ama dadka dhexdooda ha ahaato ama xayawaanaadka inuga hareeraysana aadeene waxaa loo baahan yahay inay nolosheenna ay aad uga muuqato si nolosheenna ay u noqoto nolol degan adduunyada. isu dhimrintaasna ajir ayaa laga helayo, ilaahay agtiisana waa laga ammaanay. marka adduun iyo aakharaba waynu ku liibaanaynaa haddii aynu dhaqankeenna ka dhiganno dhaqan dhimrineed ama dhaqan naxariiseed oo ummaddu ay isu naxariisato. ilaahina wuu inoo naxariisanayaa. hada wabillahi tawfiiq, wasala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.